وأنا wanaagsan aqyaarta hawada aan ku saaxiibnayo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeya cid walba muuqaalka la gareeysa waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryaynaa umuuraha leedahay ilaahay inuu u sahlo ilaahay subhanahu wa ta'ala ana awlaada uu barakeeyo inta awlaadoonkaana ilaahay awlaad baari ha siiyo inta gurdoonkaana gur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna ha siiyo qof walba muuqaalka leegta ku qabta waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryaynaa dambigoodii dambiga waalidkooda ee baynu dhaafay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku cazuma aakhira جنة الفردوس الأعلى ربي سبحانه وتعالى أنا فرج غير قبينه إلهي وفره حاسدك وعلى النهي ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحكودا بينيا هوق قصاره محايا لي حاسد كوامدك قريبي صومالي ربي سبحانه وتعالى أنا وعن كبر ينا حاسد كانوا ومد الصومالي إلهي وكان حقبته هوق نقولي جيس وقتصه بإذن الله الكريم حاسد وقصه على دونا قيبته وصي فريمها وعن دمانتين أن الله النهي اللي يكتر العقمي هي كوكا وموقع كالليكتا وعن دي سو قد بين دونا qodobo xasaasi ah oo ay ka mid tahay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo madaxa ilaaladiisa u magacaabay taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir goordhaweyd haddaba qofkan la magacaabay muxuu hore u ahaa yuu sareer ahaan ka soo jeeda waxaan idin soo gudbin doonaa xog ku saabsan taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir uu magacaabay agaasima Fahad Yaasiin iyo dagaalyahano ka tirsan دقدقاق على الشباب وسراكيل سرسراء وديارadaha Mareykanka duqeyn ay ku dileen gobolka Shabeellada Hoose iyo xubno sarsaro ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo maanta mar kale la xiray ayadoona wasiiradda caafimaadka ay sheegayso inaysan ka warqabin sababaha keenay in la xiro agaasimihii waaxda maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka oo shalay la xiray inkastoo hadalkeeda kadibna la xiray agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka haddaba xogtaasi ayaan idin soo gudbin doonaa oo ah sheekooyin cajiib ah hadduu Allah awoodda leh u saamaxo laakiin qodobka ugu horeeya aan ku bilaabi doonno wuxuu noqonayaa taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kana mid ah xubnaha ugu awoodda badan dawladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magacaabay taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir arinta la yaab kale waxay tahay in taliyihii nabad sugidda gobolka Banaadir uu magacaabay agaasime Fahad Yaasiin Xaaji Daahir agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed wiil u ahaa madaxa istaafka isla markaana xukumayay istaafka ilaaliya taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir agaasima Fahad Yaasiin Xaaji Daahir agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa wareegto uu soo saaray wuxuu ku magacaabay madaxiisii istaafka inuu noqdo taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir waxaana xilkaasi laga qaaday shakhsigii sida kumeergaarka u hayay kaas oo lagu magacaabay Ciise Maxamed Ciise oo ahaa kusimaha taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir muddo bil ku dhowna xilkaasi hayay ka hor intaan laga qaadan Ibraahim Macalin Cabdullaahi Baadiyow oo la dhashay siyaasiga weyn Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Baadiyow Fahad Yaasiin ayaa qoraalka ama wareegtada uu soo saaray wuxuu amray dhammaan taliska nabad sugidda gobolka Banaadir iyo waliba hay'adda inteeda kale inay la shaqeeyaan agaasimaha ama taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir Yaasiin Farey isla markaana si uu u gudo shaqadiisa inay dhammaan la shaqeeyaan Sarakisha ayuu amray agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir lama oga sababta dhabta ee keentay Fahad inuu madaxii istaafkiisa uu magacaabo taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir Yaasiin Farey Yaasiin reer ahaan waxay isxigaan Ibraahim Macalin Cabdullaahi taliyihii hore ee nabad sugidda gobolka ee xilka laga qaaday ama wuxuu ka soo jeedaa reer ahaan beesha Mudulood Abgaal oo Caysle waxaana uu ahaa madaxii istaafka ee agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Yaasiin Farey waxaa la sheegay in nabad sugidda uu ku soo biiray xilli aan fogeen waxaana xilligaasi nabad sugidda u qoray taliyihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Tuuryare oo la sheegay inuu la shaqeyn jiray Yaasiin Farey waxaana la sheegay in xilligaasi uu ku soo biiray Master Farey nabad sugidda haddana waa taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir sida maanta digreetada uu ku soo saaray agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Fahad Yaasiin ayaa waxa uu ka mid yahay xubnaha ugu awoodda badan dawladnimada Soomaaliya waana midda maanta keentay in madaxii istaafkiisa uu u magacaabo taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir kaas oo xukumayay ilaalada Fahad Yaasiin laakiin hadda durbadiiba loo dalacsiiyay in dhammaan sirdoonka iyo nabad sugidda gobolka Banaadir madax uu ka noqdo
gordhow ayaan idin soo gudbin doonaa xogta intaasi ka faahfaahsan ee ku saabsan taariikhda taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir madaxii istaafka agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin Xaaji Daahir dhanka kalena dagaalyahano ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo al-shabaab ka tirsan ayaa lagu duqeeyay deegaan hoos yimaada gobolka Shabeellada Hoose duqeyntan ayaa waxaa geystay diyaaradaha Mareykanka ee aan duuliyaha lahayn waxaana war ay soo wada saareen dowladda Soomaaliya iyo taliska African oo ah kan Mareykanka ee Soomaaliya howlgallada ka fuliya ay ku sheegeen inay ku beegsadeen saraakiil sarsare oo ka tirsan dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana Mareykanka uu sheegay in duqeyntaasi ay ka caawiyeen taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Nisa iyo waliba askarta Mareykanka oo iskaashanaya inay dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa lagu sheegay war ka soo baxay Mareykanka laakiin maysan sheegin Mareykanka saraakiisha ay dileen magacyadooda ayadoona duqeymaha muddooyinkii dambe ay ka dhacayeen deegaano badan oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya oo ay maamulaan dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya iyo dalal dhaca geeska Afrika goobta duqeynta ee ka dhacday waa deegaanka Awdhegle oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose Mareykanka ayaan wali faahfaahin ka bixinin iyo waliba hay-adda Nisa saraakiisha ay ku dileen weerarkaasi mase jirto war ka soo baxay dhanka dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay kaga hadleen duqeyntii xalay diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellada Hoose laakiin saraakiil iyo waliba ila muhiim ah oo ka tirsan hay-adda Nisa iyo waliba ila madax bannaan ayaa sheegaya in saraakiil sarsare oo ka tirsan dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab gaar ahaan qaybta amniga in lagu dilay weerarkaasi waxaan goordhow aan idin soo gudbin doonaa saraakiishan weerarkaasi lagu dilay magacyadooda saddexan iyo waliba qabiilada ay ka soo jeedaan waxaana warar hordhac ay sheegayaan in dadka la dilay uu ku jiro ku-xigeenkii madaxii amniyaadka guud ee dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo waliba sargaal xagga u qaabilsan qaraxyada oo la sheegay inuu ka mid ahaa dadkii lagu dilay duqeyntii ka dhacday Awdhegle sida wararka ay sheegayaan walow al-shabaab wali aysan jirin wax war ah oo ka soo baxay dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa kala hore Mareykanka waxay ku eedeeyeen in duqeymaha ay ku bartilmaameysaan dad shacab ah ayadoona meelaha qaar la soo gelinayay warbaahinta dad shacab oo ka hadlaya duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ee geystaan iyo waliba saameynta dadkaasi shacabka uu ku yeesheen duqeymahaasi Amnesty International ayaa toddobaad ka hor waxay ambaaraysay weerarada Mareykanka ay ka geystaan koonfurta Soomaaliya waxayna Amnesty ay sheegtay in weeraradaasi lagu waxyeeleeyay dad shacab ah oo ku dhaqan koonfurta Soomaaliya inta shalay la socotay barnaamijyada aan soo gelinay barta YouTube-ka waxaa la xiray agaasimihii waaxda maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya kadib markii agaasimaha waaxda maaliyadda lagu eedeeyay inuu musuqmaasuqay lacaga lagu talagalay in lagula tacaalo dadka soo rita cudurka coronavirus kadib markii agaasimaha waaxda maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka ay su'aalo ay weydiiyeen xubno sarsare oo ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka iyo sidoo kale hantidhowraha guud ee qaranka waxaana la sheegay su'aalahaasi kadib in habeen ka hor gurigiisa ay u dhaceen ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya sidaan warbixinteena aad ku daawan kartaan oo aan soo gelinay YouTube-ka waxaan shalay aan idin sheegnay in la xiri doono agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale shakhsiyaad kale oo sarsare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka waxaana sidoo kale xeer ilaalinta iyo sidoo kale hantidhowraha guud ay ka dalbadeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha in wasiiradda caafimaadka iyo waliba wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dowlaha laga qaado xilka inta ay socoto baarista laakiin maanta ayaa la xiray agaasimihii guud ee shalay aan idin sheegnay in ay socoto hooshii lagu xiri lahaa xilli la sheegay in saakay xafiiskiisa ay kala baxeen ciidamada booliska gaar ahaan qaybta dambi baarista CID-da kuwaasoo warqad ka wata xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka iyo sidoo kale hantidhowraha guud ee qaranka laakiin intaan la xirin agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka waxaa shir jaraa'id Muqdisho ku qabatay wasaaradda caafimaadka Fawziya Abuukar waxayna wasiiradda shirkeeda jaraa'id ee ku sheegtay in la xiray agaasimihii maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka Maxamuud Maxamed Buule laakiin wasaaradda aysan ka warqabin sababaha loo xiray iyo waliba waxa hantidhowrka iyo xafiiska xeer ilaalinta ay u xireen agaasimihii waaxda maamulka iyo maaliyadda waxayna wasiiradda ay sheegtay in ay baari doonaan siday wax u jiraan waxaana sidoo kale wasiirad Fawziyo carabka ay ku dhufatay in baaristaasi ay la kaashan doonaan xafiisyada hantidhowrka guud iyo waliba midka xeer ilaaliyaha qaranka
laakiin hadalka wasaaradda caafimaadka kadib ee ka hadashay mas'uulkii shalay la xiray ee ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka Marwo Fawziya Abuukar waxaa kadib la xiray agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya kaas oo lagu yimid xarunta wasaaradda caafimaadka dabadeedna halkaasi ay kala baxeen ciidamada booliska gaar ahaan kuwa dambi baarista CID-da ee fadhigoodu uu yahay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana la sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Xaashi in hadda uu ku xiran yahay xarunta dambi baarista CID-da halkaasina su'aalo ay ku weydiinayaan xubno ka kala socda booliska iyo sidoo kale xafiiska antidhowrka iyo kan xirlaaliyaha guud ee qaranka Cabdullaahi Xaashi agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xarigiisa wuxuu imaanayaa xilli shalay la xiray agaasimihii waaxda maamulka iyo maaliyadda kaas oo lala xiriirinayo in musuqmaasuq uu geystay waxaana sidoo kale dhanka kale wasiirad Fawziya xubno ka agdhow xafiiskeeda ay sheegeen xariga ayaa xaqiijinaya in xariga mas'uuliyiintan ay tahay mid siyaasadeysan isla markaana aysan ahayn wax musuqmaasuq ay geysteen waxaana wasiiradda xafiiskeeda laga soo xiltay lacagaha lagu talagalay in lagula tacaalo coronavirus in loo gudbiyay wasaaradda maaliyadda laakiin aan la soo mirsiinin wasaaradda caafimaadka shakhsiyaad dana kale wasaaradda oo keensaday dhalinyaro isla markaana laga diiday in loo shaqageliyo ay wadaan arintan musuqa beenta ah ay soo abaabuleen hadda wixii wax arimahan ku soo kordho waxaad ku daawan doontaan barnaamijyada soo socda dhammaantiinba waxaan leenahay ilaahay ha idin xifdiyo Soomaaliina ilaahay ha mideeyo umuuraha leenahay ilaahay ha inoo sahlo Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana wa umurul muslimina kullaha sahla ilaahay oo dhammaantiinba waxaan ka magangalnaa corona virus iyo waliba dhibaatooyinka adduunka ka jira ya rab ilaahu wada magantaada ku jirna ilaahu dhammaantiinba ina amaansinta xanuunsanna ilaahu xanuunka ka dulqaad wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallim taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin